حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة وكلمة قيمة بدن وكلمة قرآن كسوار ورتي وكلمة الله قول كيساء سبحانه عز وجل. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نبي الله إبراهيم أيايلي عليه السلام مركدبك الوردي إلهي لك قوتي نبي الله محمد بايلي مركي لي والدين سو كل ما بقى dadkii baa idin soo kulmay ka cabsada qof kasto muslima kelimad dhikri ah oo inuu yiraahdo ay tahay markuu culays dareemo weeye iyadaasan leenahay xasbunallahu wa ni'mal wakiil. waxaan baraarujin lahaa alle iskashadiisa iyo dhikriga iyo istiqaamada ka bacdi asbaabtii la dardaarmay in la qaato ay tahay in la taxadaro. waa maalin muddo dheer ay soo ballaminayeen maanta oo kale ay kusoo hirinayeen oo tilmaamayeen oo soddon kala hayeen. marka taxadarkeena aan qabno ilaahayna aan ku kalsoonaano. waxaan ku kalsoonahay in aan sida wax loo sheegayo waxba u dhici doonin ilaahay idinkii. arrinta kale dardaarmi lahaa waxaa ka mid ah marka dhibaato timaado ama colaado timaado ama cabsi timaado waxaa la yidhaahdaa waxa ugu horreeya oo dhinta waa runta. marka ilaa xalay baan gurubyada fiirinayay waxaan waddankan ka dhicin waxaan maanta iyo shalay dhicin waxaan dhicinba oo gacan ku samays ah yaa sidaa loo soo qufaya ma garanayo dadku waxay ka faa'iidayaan rucbigelinta iyo sawirrada noocaasa xataa wax dhacay hadduu yahay oo ayna hadda waxba faa'iidaynaynin soo gelinteedu waxba muhiim ma aha. marka dadku ilaahay inay ka cabsadaan isa sugaan waxaasi waa un salbabakh iyo farganax iyo cabsi iyo wadna kurkur baa dadka ku kalifayaan u malaynaya mise waa xumaan iyo dadka ka naxiya iyo waracnimada iyo dhowrsoonida dadka ku yar iyo qofka muslimka qalbigiisa farxad in la geliyo ayaa la isku dardaarmay. laakiin in la geliyo naxdin waxba laga heli maayo aan dembi ahayn. xog rasmi ah qofka haya oo jirta oo wax ku dhisan karno walaalo u taagan baa jira hala soo wadaagaan dadka. waa loo baahan yahay wixii muhiim ah wixii wacyigelin ah wixii tilmaan iyo tala ah wixii digniin ah oo khatar ah inuu soo foolo laga fakan karo wixii nasaaix iyo talooyin ah. laakiin waxa aan aakhiriya adduun midna waxba faa'iideynin dadkana waxba u kordhinaynin iyadana ay khalkhalka abuurayaan hala iska daayo hala sugnaado. khayr iyo nabad bay ku dhammaanaysaa. waa maalin caadi ah qoraxdu dhinaceeda ka soo baxday ay kasoo bixi jirtay dhinacay u dhici jirtay u dhacaysa biidni illaahi tacaala. hadday wax dhacaana wax qoraa weeye wax la baajin karo ilaahay xaggii wax kaaga qoran lama baajin karo. khayr iyo nabad baan isugu ducaynaynaa. ilaahay subxaanahu caza wajalla hayna sugo hana ina xifdiyo intaa walaalaha dib u soo gaadhay iyana ilaahay subxaanahu caza wajal bedel khayr qaba ha siiyo. aad baan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.